maamulka iyo shacabka ku nool deegaanka Xero oo kamid ah deegaanada ku yaala koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya qiyaasina 200 oo kiiloomitir dhinaca bariga kaga beegan xarunta gobolka Mudug ee Gaalkacyo ayaa iminka waxay ka cabanayaan xaalado bini'aadanimo oo ka jira degmadaasi gudoomiyaha degmada Xero Axmed Maxamuud Xaashi iyo sidoo kale qaar ka tirsan shacabka ku nool degmada Xero oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in iminka degmada Xero ay ka jiraan xaalado bini'aadanimo oo saameyn ku yeeshay bulshada taas oo ugu horeyso dhinaca isgaarsiinta waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale biyaha sidoo kale waxaan aad noogu yar isgaarsiinta dad aad u fara badan baa degan deegaankan iyo dhulka miyiga hoos yimaada waxay dadku la fuulaan anteenada geedaha iyo meelaha dhagaxyada waxa dhacday dad badan oo sheebabi inay ka dhaceen oo inta anteenada raadinayeen ay soo gaartay waxyeelo marka runtii waxaana ereyadeena anaga waxa ka shaqeeya waa shirkadda leedahay Hormuud runtii in badan baa cabasho gaarsiinay Gaalkacyo ilaa Muqdisho aan gaarsiinay cabashadeena ilaa haddana ma aan helin cid nooga jawaabta waxaan rajaynaynaa insha Allah bilkariim inay si degdeg ah uga jawaabi doonaan cabashadeena baahida iyada noogu sii badan haddii aan ka hadlo biyaha toorlaan waxbarashada oo noo dhisan oo noo bilaaban oo aan hadda wax nooga qabtaan wali aan arag iyo iskuulka oo naga dayacan iyo baa noogu badan caafimaad degdeg aan u baahanahay meel kasta inkastoo aan waayeel iyo caruur inta mulisooyin iyo wax kaste baan u baahanahay oo dad waayeel iyo caruur inta waa leenahay markii gabdhaha fooshu qabato nooc kaste hooyooyin iyo gabdho inta aan ambalaas aan heli karin oo aanan xarufteeda aysan goyn karin aanan baahida hadda meeshan laga hadlay gudoomiyaha oo ka sheekeeyay iyo guddiga xubnihiisa kaleeto wax jira weeye aad iyo aad xawaarahooda u dheer yahay wax qabad ballaaran bayna loo baahay aan u baahanahay oo uga gudbi karnaa Axmed Maxamuud Xaashi gudoomiyaha degmada Xero oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Galmudug hay'adaha samafalka iyo cid kasta oo wax ka qaban karta sidii bulshada ku nool degmada Xero ay u heli lahaayeen adeegyada bulshada oo ay ugu horeyso isgaarsiinta waxbarashada caafimaadka iyo biyaha in laga caawiyo maamul xaqiisa ilaa hadda ama maamulka Galmudug hoosnamaano anaga ka tirsan ha noqoto ama dawladda Soomaaliya ha noqoto wax caawinaad oo maamul ka socda runtii ma aanan helin marka waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha runtii samafalka ku shaqada leh iyo maamulka intaba in ay bulshada wixii ay tari karaan oo baahida inta leeg wixii ay ka caawin karaan inay ka caawiyaan Baasha Al Xaashi raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaala xeebeedka Hobyo